Hogan 24 Media ka dhigo wehelkaaga. Salaamullaahi calaykum dhammaan asxaabtana daawanaysay. Subax wanaagsan, halkani waa barta aan ku leenahay YouTube-ka Hogan 24 Media. Aniguna waa Cabduuli Macallim Alto. Waxaad nagu soo dhawaataan wararkii ciyaaraha ugu dambeeyay iyo sidoo kale wararkii suuqa kala iibsiga kubadda cagta oo aad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee barnaamijkeena. Qodobada idinku waa barnaamijkeena saaka waxaa ka mid ah halyeegii Manchester City ee dhawaa ka tagay oo coronavirus uu ku dhacay. Mas'uud Ozil oo looga gacan haatinayo dalka Sacuudiga. Kooxda Manchester United oo la ogaado qofka ka caawiya saxiixa Van de Beek. Neymar oo shaaca ka qaada halka uu ka ciyaari doono xilli ciyaareedka dambe. iyo kooxda Barcelona oo heshay wadda ay Lionel Messi ku cashanayso. Maxay sadamacsan yihiin qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso leh ayaan idinku hayaa barnaamijkeena saaka ee daawasho wacan. aynu ka horeyna halyeegii Manchester City ee dhawaan ka tagay kooxda David Silva ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhacay coronavirus ka hor inta uusan tababarka la bilaabin kooxdiisa cusub. David Silva oo 10 sanadood joogay Etihad Stadium isla markaana koob badan la soo qaaday kooxda Manchester City ayaa xagaagan isaga tagay kooxda kadib markii uu dhacay qandaraaskiisa. wuxuu dib ugu laabtay dalka Spain isagoo si xor ah ugu biiray kooxda Real Sociedad, laakiin David Silva ayaa awoodi waayay inuu tababar la qaato maalintii shalay ahayd kooxdiisa cusub kadib markii laga helay coronavirus. kooxda Real Sociedad ayaa sheegtay in David Silva aysan ka muuqanin wax calaamado ah ama uusan qabin xanuun, balse lagu ogaaday in virusku uu sido kadib baaritaan lagu sameeyay. xidiga wayaariga ee reer Spain ayaa haatan geli doona karantiil muddo 2 isbuuc ah ka hor inta uusan tababar la bilaabin kooxdiisa cusub ee Real Sociedad. waxayna taas la micno noqonaysaa inuu seegi doono kulanka ugu horeeya ee xilli ciyaareedka La Liga 2020-2021. kooxdiisa Real Sociedad ayaa marti u noqonaysa 13 Sebtembar kooxda Valladolid, laakiin waqtigaas ma ahan mid ku filan inuu Silva ka soo laabto karantiilka isla markaana uu u diyaar garoobo kulankaas. fayraska coronavirus oo weli laga adkaalaya ayaa dib ugu soo laabanaya wadamo badan oo Yurub ah oo ay ka mid tahay waddanka Spain. dhinaca kale Mas'uud Ozil ayaa helay dalab uu ku soo afjari karo 7 sanadood oo ka ciyaaray Emirates Stadium isagoo xiran fanaanada Arsenal, kuwaas oo ku dambeeyay inuu kursiga keedka fadhiyo ama liiska kooxdaba laga saaro muddooyinkii ugu dambeeyay. sidoo qoray wargeyska Fanatic ee ka soo baxa waddanka Turkiga, kooxda ka dhisay Sacuudiga Al Nassr ayaa xiriir la sameysay kubad sameeyahan reer Germany, waxayna u soo martay wakiilkiisa iyagoo doonaya inuu u soo guuro dhulka barakeysan ee boqortooyada Sacuudi Carabiya oo uu ku soo dhawaado kabacda. wargeysku waxa uu sheegay in Al Nassr ay u balaqaaday Ozil mushaar dhan 16 milyan oo euro, isla markaana ay ku rajo weyn tahay inuu u saxiixi doono heshiis xor ah oo uu Gunners kaga imaan doono. nadiga Arsenal ayaa la sheegay inay doonayso in Ozil uu isaga tago, laakiin laacibkan ayaa ku adkeysanaya in haddii heshiiskiisa la kansalo ay siiyaan lacagta uu mushaar u qaadan lahaa sanadka uga harsan qandaraaskiisa Emirates. Mas'uud Ozil ayaa sanadii 2018 waxa uu saxiixay heshiis cusub oo uu toddobaadkii mushaar ahaan ugu qaato 350 milyan oo geli, laakiin tababaraha Unai Emery iyo Mikel Arteta oo iskaga dambeeyay Gunners ayaa u muujiyay niyad aanan wanaagsaneyn, taas oo keentay in kursiga keedka uu ku jiro ama liiska kooxdaba laga reebo. halyeega kooxda Manchester United Edwin van der Sar ayaa la sheegay inuu door weyn ka ciyaaray ku guuleysiga Manchester United ee Van de Beek, kaasoo tijaabada caafimaad ku maray kooxda Manchester United. wargeyska The Sun ayaa baahiyay in xidiga qadka dhexe Ajax uu tijaabada caafimaadka ku maray dalkiisa Holland xilli aabihiis uu heshiiska ku tilmaamay mid riya ah. Daniel Van de Beek waxa uu sagay kulankii Sabtida ee kooxdiisa Ajax la ciyaartay naadiga Frankfurt, iyadoo tababaraha naadiga Ajax uu soo jeediyay inay sugayaan sida ay wax noqdaan. goolhayihii hore ee kooxda Manchester United Edwin van der Sar oo agaasimo ka ah haatan naadiga Ajax ayaa bishii June shaaciyay in naadiga Manchester United ay xiiseynayso xidigan qadka dhexe. wargeyska The Guardian ayaa sheegay inuu Van der Sar xidigan ku qanciyay inuu iska diido kooxaha Real Madrid iyo Barca si uu ugu biiro kooxda Manchester United xagaagan. dhinaca kale xidiga garabka weerarka uga ciyaaray kooxda PSG ee Neymar Jr ayaa go'aan kama dambaysi ka gaaray mustaqbalkiisa, isagoo xaqiijiyay inuu u ciyaari doono PSG xilli ciyaareedka dambe. kooxda Barca ayaa la xiriirinaya Neymar sanadihii ugu dambeeyay, laakiin xidiga ayaa meesha ka saaray suurtagalnimo kasta oo uu kaga tagi karo kooxda xagaagan.
xidiga reer Brazil ee kooxda PSG ayaa la gaaray finalka Champions League xilli ciyaareedkii dhamaaday isagoo door muhiim ah ka qaatay arrintaas. Neymar oo arrinkaas kala hadlaya saxaafadda France ayaa yiri waxaan sii joogi doonaa PSG xilli ciyaareedka cusub. waxa aan leeyahay hami ah inaan mar kale kooxda la gaaro finalka Champions League waliba markaan kula guuleysto. dhinaca kale madaxweynaha kooxda Barcelona ee Jose Mario Bartomeu ayaa diyaarinaya heshiis waaliha oo Lionel Messi ugu qancinayo inuu iska sii joogo kooxda waliba heshiis cusub u saxiixo. madaxweynaha Barca ayaa qorshaha la yimid kadib markii uu Lionel Messi maamulka kooxda ugu gudbiyay warqadda bixitaanka ugana codsaday inuu isaga tago xagaagan. waxa ay taasi dhariru Lionel Messi maalintii labaad oo xiriir ah uusan imaanin tababarka kooxda ee iskugu diyaarinayso xilli ciyaareedka cusub si uu ugu qasbo inuu isaga tago kooxda. shabakadda ESPN ayaa sheegaysa in madaxweynaha Barca ee Jose Mario Bartomeu diyaarinayo heshiis cusub oo 2 sanadood ah uu ka saxiixayo Lionel Messi. madaxweynaha ayaa doonaya inuu Messi qalinka ku duugo heshiis ilaa iyo xagaaga 2023 waliba uu sanadkii mushaar ahaan ugu qaadanayo 100 milyan oo euro. haatanna waxaad ku soo dhawaataan qaybtii ugu dambeysay barnaamijkeena oo aad ku maqli doontaan wararka suuqa kala iibsiga ciyaaraha. weli daawadayaal waxaad inaga daawanaysaan barta aan ku leenahay YouTube-ka ee Hogan 24 Media. naadiga Arsenal ayaa ka sashay qadaraaska ay kula jirtay xidigii ay ku qasaareen Henrik Mkhitaryan kaasoo si xor ah ugu biiray kooxda Talyaaniga ee Roma oo amaah ugu ciyaaray xilli ciyaareedkii la soo dhaafay. xidiga Zlatan Ibrahimovic ayaa qadaraas cusub oo 1 sano ah u saxiixay kooxda AC Milan isagoo sanadkaas qaadanaya lacag dhan 7 milyan oo euro waxaana la siiyay nambarka cusub ee 11. xidiga Danny van de Beek oo ah xidiga qadka dhexe si weyn loo raadinayay ayaa tijaabada caafimaadka u maray kooxda Manchester United isagoo tijaabada caafimaadka ku maray dalka Holland ka hor inta uusan 40 milyan oo gini uga soo wareegay kooxda Ajax. kooxda Manchester City ayaa heshiis shakhsi ah la gaartay daafaca dhexe ee kooxda Napoli Koulibaly laakiin sida ay sheegtay majalada France Football kooxda Premier League ka dhisan wali wax dalab rasmi ah ma aysan u gudbin kooxda Napoli. xidiga qadka dhexe ee Barcelona Arturo Vidal ayaa kula la leh madaxda Barcelona isagoo doonaya in si bilaash ah lagu fasaxo xagaagan. waxaana xidiga reer Chelsea sugaysa kooxda Inter Milan iyadoo uu tababar Antonio Conte uu muhiim u arko xidigan qadka dhexe ka ciyaara. dhinaca kale sida ay sheegtay jariirada Corriere dello Sport ciyaaryahanka Patrick Schick ayaa ka tagi doona kooxda Roma isagoo baaqi ku ahaan doona horyaalka Bundesliga laakiin lama sii joogi doono kooxda RB Leipzig oo uu amaah ku joogo xilli ciyaareedkii la soo dhaafay. taas beddelkeeda wuxuu heshiis 27 milyan oo euro ah ugu wareegi doonaa naadiga Bayer Leverkusen. waqtigii Mesut Ozil ee Arsenal ayaa ugu dambeyn u muuqda mid soo dhamaanayo iyadoo jariirada dasan ay sheegtay inuu dalab qaali ah ka helay kooxda Sacuudi Carabiya ka dhisan ee Al Nassr. xidiga qadka dhexe uga ciyaara naadiga Barcelona Ivan Rakitic ayaa ku dhow inuu dib ugu laabtay kooxda Sevilla isagoo muddo 4 sanadood oo ku soo qaatay naadiga Barcelona wuxuuna haatan u saxiixayaa heshiis 3 sanadood ah naadiga Sevilla. naadiga Leverkusen ayaa lagu soo waramayaa inay aqbashay inay waayi doonto labada xidig ee ugu waaweyn kooxdeeda xagaagan. tababaraha Bayer Leverkusen ayaa yiri uma maleynaya in Kevin Folland iyo Havertz inay ku soo laaban doonaan tababarka kooxda. naadiga Monaco ayaa u muuqato mid la wareegaysa Folland halka Havertz uu ku biirayo naadiga Chelsea. sida ay sheegtay jariirada Talyaaniga Corriere dello Sport Juventus ayaa dib ula soo saxiixanaysa weeraryahanka da'da yar ee Musa Kean oo ay ka iibiyeen kooxda Ingiriiska ka dhisan ee Everton. tababaraha naadiga Tottenham ee Jose Mourinho ayaa doonaya inuu weerarkiisa xoojiyo kaasoo doonaya inuu ku soo daro weeraryahanka naadiga Bournemouth ee Joshua King. ugu dambeyntii daafaca garabka bidix ka ciyaara ee Kolasinac ayaa waxaa xiisanaysa naadiga Schalke 04 oo hore u soo ciyaaray ciyaaryahankan iyadoo hore ay u xiisanaysa naadiga AS Roma waxaa qoraya wargeyska Blind. waxaa halkaa inoo eeg barnaamijkeenii saaka oo aan idiin soo gudbinaya anigoo Cabdulle Macalin Maalto. haddaba si aad u hesho barnaamijyo xiiso leh iyo wararkii ciyaaraha ugu dambeeyay fadlan subscribe saar gabalaalkana furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela barnaamijyadeena. ana hilmaamin inaad la wadaagtid asxaabtaada adigoo sheer garanaya muuqaalkan. waxaan idin leeyahay waa inoo kulanti dambe iyo barnaamij xiiso leh fi amaanillah.